waxaan rabaa sidaas ay wasaaraha ka dhawaajinayay dalka waxaa ka jirta abaar aad u daran waxaa ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyiinta mal dhamaanteen looga baahan yahay inaan ma aragtay gacanna damaashaadkeen aan ku wadano gacanna badbaadada ummadeen aan ku wadano marna ma aragtay la naga dareemin inaan ma aragtay niijab lagu jiro in la dareemin shacabka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in abaarahan looga gargaaro amnina uu helo dawladda cusub maadaama waqti badan ma aragtay dhibaato lagu soo jiray dawladda cusub sida ma aragtay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dhamaantaan aan qabno shacabka Soomaaliyeed amni iyo gargaar bay u baahan yihiin labadaba insha Allah dadaal xoog leh la gelin doona marka mudanayaal iyo marweyne akhyaarta sharafta badan waxaad ogtihiin waqtiga la gaaray kuma fogaanahayo waxa inoo balan ah midnimo Soomaaliland oo la qaniyo jamhuuriyadda Soomaaliya oo sideeda lagu soo celiyo annaga oo gacmaha hasqabsana aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad u mahadsan yahay gudoomiyaha golaha shacabka oo wakiilka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe calan saarkii ayaa la aadayaa fadlan waxaan idinka codsanaynaa inta ay madaxda halkan ka baxayaan ee calan saarka aadayaan in aanan lagu sii cariirinin booska ka soo qaybgalayaasha dhamaantiin aad ay u mahadsantiin xafladdeena way inoo xiran tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaah